magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buug cusub oo la yiraahdo gundhiga xisaabaadka ganacsiga iyadoo ay ka qayb galeen bandhigiisa mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wariyahana Maxamed Maxamuud Xalliye ayaa warbixintan mar kale noogu diyaariyay Garowe. buuggan cusub ee la xiriira dhanka xisaabaadka iyo ganacsiga ayaa lagu soo bandhigay hoolka jaamacadda BSU ee Garowe waxaana ka soo qayb galay arday aad u fara badan oo wax ka barata jaamacadda gaar ahaan kulliyadaha buuggani uu diiradda saarayo. Sharmaarka Cabdullaahi Cali oo ah qoraaga buuggan oo goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyay marxaladii uu ka soo maray qorista buuggan iyo sidoo kale ahmiyadda uu bulshada u leeyahay in uu maaragtay fahanka iyo kor u qaadista xisaabaadka ganacsiga ka caawiyo bulshadeena in ardada iyo macallimiinta uu noqdo marjic cilmiyeed oo loo laabto oo maaragtay cilmiga u qoran muhiimadda saddexaad ee ugu muhiimsan waxa weeye buugga inuu mataqaana luqadii af Soomaaliga ay la jaan qaado cilmiga aysan ka harin horumarka maanta adduunka ku talaabsaday luqadaha iyo maaragtay ay qayb ka tahay in luqadu si ay u noolaato inay ku qoran tahay cilmiga iyo markasta horumarada iyo maaragtay innovationka iyo waxyaalaha la soo sameeyo inay luqadii maaragtay aysan ka harin inahaas ugu muhiimsan umadana waxa isleeyahay wuxuu ka anfici doonaa inay si fudud oo aan dib lahayn afkooda hooyo ku akhristaan kuna fahmaan cilmiga buuggan ku qoran. Maxamed Maxamuud Xalliye, Puntland TV, Garowe.